الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نبينا صلوات ربي وسلام عليه وحاوليه لح الريموت نفتينا دمانا قادا أما إيقا دمانا قادا شنادا أننا إيدين دمانا قادية. يعني لحدا الريموت روحا حقيقية شنادو وقرنتي دمانا وي إنو شنادا قليل. وحو النبي قول صلى الله عليه وسلم لحدا الريموت مدى ذا كوبات مركات شيكين إيسان روم شيكا qodobka labaadna haddaad ballan gashaan ballanta ilaaliya. qodobka saddexaadna ammaanada guta. qodobka afraadna nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam xubinkiina taranka ilaaliya. qodobka shanaadna nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam indhaha xaaraanta ka laaba. qodobka lixaadna nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam gacmihiinna celiya oo wixii ilaahay xarimay ka celiya. lixdaa qodob ruuxii xaqiijiya nebi maxamed wuxuu leeyahay jannada anaa u damaano qaadaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xaqiijintoodii baa marka waxay tahay marbatulfaras, meeshana muhim ah. waxa la ballan qaadayo waa waxaan wada raadinaynay wey, waa jannada rabbi tabaaraka wa tacaala. waa wixii cid walba ay ku taamaysay, cid walbana ay higsanayso inay gaadho wey, ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa iyo naxariistiisa. tani marka asbaabta lagu helo qaar ka mida wey. qodobka koobaad oo nabigu leeyahay sal alla alay wasalam markaad hadlaysaan run sheega. xadiid kale oo cabdillahi bn mascuud laga warinayo bukhaari iyo muslim ay soo saareen ayaa nabigu wuxuu leeyahay sal alla alay wasalam runtu ruuxa wanaagay ku hanuunisaa. war haddaad runlow tahay runtu waxay kuu jiidaysaa wanaag iyo biri iyo wax wanaagsan. waxa wanaagsanna wuxuu kuu jiidayaa allah jannadiisa. ruuxu inuu run sheegayo runtana ku dadaalayo ka zuuli maayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kii runta badnaa, sidiiq. saas daraaddeed runtu waa waxyaalaha jannada waajibiyey ka mid tahay oo sabab u noqon kara ruuxu inuu janno galo cadaabna ka fogaado. rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimku inugu amray war dadka allah rumeeyayow alla ka baqa, kuwa runta sheegayana ka mid noqda.